isku soo noqod wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba weli waxaan ku jirnaa socdaalkii aan ku nimid magaalo xeebeedka degmada Cadale. Cadale sida aan wada ognahayba waa degmo mug weyn ku leh dalka Soomaaliya, faac ahaanna ka weyn magaalooyinka qaar ee ku yaala dalka Soomaaliya. Dhankayga midig waxaa taagan odayaasha dhaqanka ee ku dhaqan degmada Cadale ee deganaa kontomeeyo sano ka badan. ayaan hal iyo laba ka weydiin doonaa asigoo magaciisa ku bilaabayo degmadan taariikhda mugga weyn ee ku leedahay dalka Soomaaliya. Nabadon ku soo dhawow TV-ga Som TV. waa ku dhamahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. adoo magacaaga ku bilaabayo iyo inta sano aad ku nooshahay degmada Cadale. magacaygu waa Axmed Mahadal Jinaqow. waxaan ku noolahay muddo la eg 51 sannadood ku gaaraysaan ku noolaa degmadan. oo meel aad ugu bixin ma ku dhalatay? degmadan waa agaarkeedan ku dhashay laakiin 51 sano gudaheedan ku noolay aabahay ku dhintay inta ay keenan anoo yar. Okay, goorma ayaa la deegaameeyay deegaanka Cadale sanadka sameeqa ayuu ahaa? bismillaahir rahmaanir rahiim. magaca degmada Cadale asal ahaan marka aad halkan fiirisid waxa dhankan yaala asalka magaca Cadale waxa geedkan uu yahay caday. geedka magaciisa ba caday leeyahay. caday waaye. cadagaanu wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa magaca degmada Cadale uu u taagan yahay. asalkiisa dhulkan deegaan wuxuu ahay cadadu ku haysatay isagoo cadagu ku horeeyo oo aad u degan yahay ayaa la degay waa baaba'ay muddo ka bacdi waxa laga helay cadagan halkan ayaan ku helay waana dhaqaaleeyay maadaama uu magaca Cadale aan rabo inaan dib u soo laabto oo magaci taariikhdiisii geedkii loma aan dib u nooleeyo. waxaa la yiraahdaa geedkan caday muddo adiga 22 sano oo aan markaan helay oo meeshan igu xanaanaysnay waa u jeedin geedka dhumirihiisa waa u jeedin ubixiisa waa u jeedin hadda waxa idin muuqanaya waa ubixi oo toos u muuqanaya halkan waa ubixi gudud cadaay oo qurxan oo u jeedin fiida aad arkaysaan. meeshan waxa waay degmadan waxay jirtaa da'da lagu qiyaaso da'diisa waxa lagu qiyaasaa muddo 500 oo sano ku dhawaanaysa sababtoo ah 200 qarni shantaas qarni iyo raac ayaa degmadan lagu qiyaasaa sababtoo taariikhda degmadan guri laga dhisay dabaqa waxa aheeday 1811 oo barqash oo ka taaga guriga baadooyinka ah meesha ku dhisan ee dawladda dhexe ay toos u deganay. sida la sheegay shalayaan booqanay dhismaas qadiimiga waxa la sheegay in laga arrimi jiray degmada Cadale oo xilligii Talyaaniga iyo Ingiriiska labadii jeer Talyaanigu yimid iyo markii Ingiriisku yimid intaba wuxuu ka arrimiyay gurigan waxa laga xukumay dhamaan marka loo qaybiyo Beledweyne Jowhar iyo Muqdisho shabeellaha dhexe dhanka shabeellada dhexe ilaa Hiiraan laga xukumay. gurigaas laga xukumay sababtoo wuxuu ahay gobolka laga xukumo deegaankan uu ahay. waxa dacwooyinka laga qaadi jiray Beledweyne halkaana lagu qaadi jiray. wixii dacwo ama kiis ka dhaca Beledweyne halkaana lagu qaadi jiray. boosta kasta oo la qaadayana meeshaas waxa la qaadi Jowhar waxa loo yaqaan Buule Eylo asalkeeda marka magaca asal ahaan Jowhar loo yaqaan Buule Eylo loo yaqaan asalkiisa. marka degmada Cadale ma jira waxyaabo lagu xasuusto oo ay caan ku tahay. degmada Cadale waxay aad ugu fiican tahay magaalo xeebeed waaye magaalo dekad ah waaye dekadeeru ay tahay dekad dabiiciya. asal ahaan waqtigii hore barqash ka horeysay waxa ka soo degi jiray dadka xeebsatada ah ee maaragtay taariikhka ama ganacsiga ah waxa laga dhoofi jiray megada waxa laga dhoofi jiray maqaarka sinjibaara loo dhoofi jiray waxay ahayd dekad dabiiciyana oo ay xaryamanka doonyaha yar yar asal ahaan carabiga dhulka carabta dadka ahay ay ka dhoofsadaan magaalo caalamiya lagana keeno oo sinjibaariya laga keeno alaabada marka kalluumaysatadaas ma carab kaliya ay ama ajaanib kale ku jiray. wax kalluumaysatada waxay ahaadeen sida badan marka ilbaxnimada ay dhanka xadaaradaha loo fiiriyo dhankeena xeebaha waxa ay u badnaayeen carab dad kale ajnaabina waa imaan jireen sababtoo hadda marka loo fiiriyo Talyaaniga Ingiriisku waxay ku ogaadeen in naqshada ay dhulkan dhul dayacan oo abaylaha oo la degi karo dalka Soomaaliya laga gali karo inuu yahay marba qayb ayaa ka soo gashay barqash sidoo kale oo ahaa xeebaha Soomaaliya uu ka soo degay qaybi uu ka soo degay oo taariikhda dheer ku lahaay hadda waxa ku yaala taariikhda aad arkayseen oo hadda idin aad soo marteen halkan taariikhda markaan dib ugu noqono degmadan waxa deegaanka noocaas ka soona taariikhdaas magacaas kanoo ka yimiday marka aan qiimeeyno geedkan asalkeeda marka Cadale cadayle ayuu ahaa
magacaaba cadale wuxuu ku baxay geedkan cadayga oo meesha isaga kaliya ku beeray talyaaniga waxa ku abuuray daluuga keenay daluuguna wuxuu noqday qayb kamida qaybihii talyaanigu uu ka tagay oo magaaladan caan ku tahay waa koobantaa meelaha uu daluugu ku yaalo cadale meel warshiq sokadeeda iyo inay tahay waxaan jeclahay Baraawe in laga helo inta kale aan laga helin magaalooyinka laga helo kamid tahay daluuga aniga markaan u qabno waxaan fiicnaa leeyahay inaad mar kale aad soo nabataan dhulkan waa dhul ku haboon in laga dhigto dekada caalamiya dhismooyin la gashado la maal gashado dhammaan dad jaaliyadaha Soomaalida ee deegaanka cadale u dhalatay waxaan ku boorinayaa inay degmada cadale dib u soo celiyaan dhisaan horumariyaan aadna ay u qurxiyaan si ay maaragta u maalgashadaan deegaankooda markaad aragtaan safarka u dhaxeeya degmada cadale iyo gobolka Banaadir ama Muqdisho waa safar aad iyo aad u dheer waxaana kiiloomitir ahaan masaafo ahaan u dhaxaysa 185 kiiloomitir waa laba masaafo markaad arkayso wadada marka aad soo socoto ugu yaraan 4 saacadood 5 saacadood soo soconaysa wadadii aad raf u ah gaarigina uu soo mari karin bacadna ah ma isku daydeen deegaan ahaan inaad maaragtay intaad isgarabsataan wadadaas aad iska sameysaan aad u dirataan wadada inaga sameey aad dhahdaan maadama waa mahadsan tahay da iga yaraatahay haddana iga waaya aragsan marka aad su'aalahaaga aadan kaaga mahad celinaya horta marka la fiiriyo deegaanka degmadan iyo magaalada Muqdisho oo ah xaruntii weyneed ee Soomaaliya waxa u dhaxeeya marka dhanka xeebta la maro 145 kiiloomitir dhanka xeebta marka wadada dhinaca kale laga soo wareego 185 kiiloomitir waaye kiiloomitirka wareega ah iyo kiiloomitirka haasta dawladii dhexe waxay mar samaysay inay xeebta wada ku soo dhigto oo kacaanka mar la weydiiyay Maxamed Siyaad degmadana uu yimiday laba jeer uu yimid labadii jeer mar dugsi sare noo dhisay marna wadada ayaa weydiinay wadada wuxuu sameeyay waxa ratuur haddana waxa ka dhamaaday waqtigii dugsiga sare midka hadda aan soo arkay oo meesha laga soo galay magaalada laga soo galay oo burburo bacad ku saaran yahay dugsiga korku wadada barigeera dawladda kacaanka Maxamed Siyaad gacantiisa ku dhigay waxayna ahayd codsi degmadan markuu yimid la weydiistay anagoo ardayga geesaha ka taagnaynay waxa la yiraahdaa ardadan maxaad u haysaa hadii ay dhameystaan dugsiga dhexe ma la kala dirayaa meelo kale loo rarayaa xagee wax ka baranayaan maxaa wacay ma dhici karto ay ureyn deegaan kale loo raro arday intaan la eg oo deegaankan ku wax baratay waa in qasab in loo dhiso dugsi sare isla markiina subaxdii wuxuu amray markuu jaleecay wuxuu amray wasiirkiisa waxbarashada iyo wasiirkiisa howlaha guud isla markiiba dawladii kacaanka waxay ahayd dawlad hadalkeedu socday go'aankeeduna cad yahay waxay si cad ugu dhaqaaqday subaxdiiba waxa yiilay dhagax annagoo dayayna ayuu Maxamed Siyaad dhagax dhigay Allah caafiyo waa iska tagay waa mahadsanaa dalka waa u shaqeeyay dadkana waa u shaqeeyay laakiin dalka wax u shaqeeya iyo wax dib u xusiista ama dib u nooleeyo guri dambe sii dhisa oo dalku leeyahay ma arag waa nasiib darro marka dawladaha isaga dambeeyay inay dayacaan ama ay noqdaan kuwa danahooda jeebka ah u dadaala waxaan leenahay dawladda soo socota maadaama uu dawladda ma isku daydeen inaad codsiyo aad u gudbisataan dawladda federaalka Soomaaliya dawladihii ka dambeeyay inaad codsi u dirsataan wadooyinka idinka dhisan isbitaalada idin dhisan iskuulaadna idin dhisan ma isku daydeen inaad codsi u dirsataan maxaad kala kulateen hadii codsi mu dirsateen mahadsanid horta codsiyo waa u diranay laakiin nasiib wanaag ma dhicin dawladihii ka dambeeyay mid kasta ha ahaato ha ugu horeeyo Ali Mahdi ha ugu dambeeyo Farmaajo dhammaan lixdii madaxweyne ee soo martay Soomaaliya mid kasta midkii noogu roonaa waana soo booqday waxbana nooma qaban sababtoo qofku hadduuna caafimaad helin waxba nolol ma jirto sababtoo cunno helay caafimaad ma jiro waa qasaaro caafimaad uu helay waxbarasho ma helin waa qasaaro nolol ma jirto marka waa in la helaa labada tiire dalku uu ka dhismo waa caafimaadka iyo waxbarashada dhismaha la xisaabtanka dawladnimo iyo haykalnimo waxaan leenahay marka dib ha ugu soo noqdo in uu la xisaabtamo goob kasta wasiir kasta xildhibaan kasta nin kasta ee mas'uuliyad haya inuu dib u la xisaabtamo hadii uu ku soo laabto hadduuna ku soo laabanna midka ka horeeyo ka dambeeyo qaban doona waxaan leeyahay la xisaabtan la imaad ku soo dhawaaw dalkaaga adigoo la xisaabtamaya dadka aad mas'uuliyadda u dhiibaysa aakhirana waa laga weydiinaa cidaad wax u dhiibtid marka maxaa ugu baaqaysaa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaan ahaan cadale ganacsatada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada cadale ogna
kuna soo koray kuna dhashay dhibaatooyin ka jira ee ka maqan taas waxaan ugu baaqayaa jaaliyadaha dadka ganacsatada ah deegaanka degmada Cadale ka soo jeeda iyo dadka ka soo jeeda oo madaxda ah magaca Cadale madaxtinimada ku istaagaya kuna maamulaya dalka waxaan leeyahay dib ula soo noqda dadkiina yaa baahan dayacan wada marka islaantu dhalayso wadada cunugu ku sii dhintaa islaantu ku dhiig baxdaa qaar dhex ku dhinta waa dayacnaan wada oo jirta ma jiro ambulance degdeg siya le dhakhtar la socdo gaarsiin kara si buuxda u maamuli kara ma jiro wada nadiif ah oo isla markaaba lagu carari karo ma jiro dhaqaale qofku oo ku isku bixin karo oo isagu inta qarashka iska bixiyo ku gaari karo magaalada dhibaato haday dhacdo ama dhaawac yimaada ama hooyo ay foolanayso ama ma jira isbitaalo kale gargaaraya ama lagu badbaadin kara hooyada iyo ubadkeeda mise muqdisho kama sokayso aad u mahadsantahay horta waa jira oo wax yar waxa waaye Med Air ayaa waxa naga taageerta dhanka isbitaalkaas oo saacid iyo waxay ka taageeraan hooyada iyo dhalaanka waa MCH ma ahan isbitaal waa hay'ad waxay ka taageeraan hooyadu markay iyagu ku aadi waayaan umulis ahaan waxay ka taageeraan inay gaadiid ka bixiyaan xamar geeyaan isbitaal geeyaan haddii marka ay qalliin noqoto emergency qalliin gudaha ku noqoto ma dhacayso in meeshan lagu qalo haddii qof dhaawacmo emergency oo yahay ma dhacayso in goobtan lagu dhaawo isbitaal la dhigo oo looga shaqo looga qabto ma lahan degmada waxa ku yaala 2 isbitaal oo waaweyn isbitaal dawladda dhexe dhistay mid hadda gacanta lagu hayaa ma shaqeeyaa marka isbitaalka dawladda dhexe dhistay dawladda dhexe MCH ahana loogu shaqeeyaa oo hay'ada ku shaqeysa midka kalena waa iska daylax cid ku shaqeysa ma lahan waa isbitaal weyn dhaqaatiirta ka shaqeey jirta laba dhakhtar oo waaweyn oo degmada caan ka ah Soomaalida ay ahaayeen Dr. Fuje degmadana uu dhakhtar ka noqday nin la dhihi jiray Cabdullaahi Xaf Qarshana degmadana uu ka noqday labaduba hadda dalka Soomaaliya laakiin Fuje waxaan jeclahay inuu Digfeer joogo degmada Cadale waxay ka tirsantahay gobolka Shabeellaha Dhexe ama maamulka Hirshabeelle wuxuu leeyahay madaxweyne saddexaad hadda jooga maadaama madaxweyne saddexaad hadda uu jooga madaxweynaha codsi ma u dirsateen ama ma soo boqday oo baahiyaha ay qabtaan ama waxyaabaha aad tabanaysaan ma kala hadasheen wax jawaabana ma ka hesheen waa aad u mahadsantahay nin yar iga su'aal badan tahay waxa waa kaaga mahadcelina madaxweynaha Hirshabeelle horta madaxweyne asagoo ah nooma imaanay isagoo wuxuu noo yimid madaxweyne ku xigeena mudan cali guudlaaw ahay labadii madaxweyne kala horena maba soo booqan labadii hore ee noqotay madaxweynayaasha ma soo booqan madaxweynaha Hirshabeellena inuu soo booqdo waa laga rabaa sababtoo degmada uu dhashay lagana taageero waxa waaye inuu markuu madaxweyne noqday uu soo booqdo horumarin ku sameeyo dib u fiiriyo dekedeerina oo dib u nooleeyaan ka rabnaa maamul kasta la kaashado madaxda qaranka maadaama uu hadda shir jiro waxaan garabnaa aan ka dhaxgalo waxa tira degadeeda inuu dib u soo nooleeyaan rabnaa degad dhisan miyaa jirta oo dawladda kacaanka ay dhistay oo dayactir u baahan mise degad cusub hadda la dhagax dhigayo way aad u mahadsantahay horta dekadu markay dekad la yiraahdo laba siyooda loo isticmaalaa dekad dabiiciyan oo alle ku siiyay oo waxna aad kala degi kartid waxna aad ka dhoofsan kartid sax taasa noo taala waxa ilaa Talyaaniga ilaa Ingiriiska ilaa gumaysiyaashii kala duwanaa ilaa Barqash ilaa Carabti waxa soo dhan ay sameynayeen dekad dabiici ah ahaayeen dekad dhagax dhigan meesha kuma taalo laakiin annaga hadda maadaama adduunyo casri ah la gala waxaan leenahay dekad la dhagax dhigana waa ka rabnaa tan dabiicigaana inay shaqeysaan u baahanaa marka bulshada ku dhaqan degmada Cadale xirfad ay qabtaan oo ku shaqeystaan nolol maalmeedkooda ay ka soo saartaan oo badaas aan ma jiraan aad u mahadsantahay meeshaan horta dadku markay wax soo saarayaan laba siyood saddex shay oo isticmaalaan dalka Soomaaliya sida badan oo lagu yaqaan saddexda shay waa xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysiga annaga sideena waxaan ku tiirsanahay aniga marka tababaraan laysi aan u fiiriyo qaabka aan ku noolahay oo nolol ahaan aan idin tusi doono doontayda shabaagayga waxaan ku tiirsanahay bad wax soo saarkeer noloshayda aan ku ilmo korsaday soo maray da'dayda dhanna aan ku qaatay daawadayaal sida aad arkaysaanba waxaan kor fadhiyaa kursigii loogu talagalay naaqoodaha ama darawalka doonta kursigii uu fadhiisan lahaa ayaan dul fadhiyaa doontan aad arkaysaan waxa gacantiisa ku sameeyey injineerka weyn
Axmed Maskiin koley asigaa nooga warami doona qaabkay u shaqaysa iyo qaabka u sameeyaba. bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed mahadal jinogo horena oo maaragtay hadalkii hore aan ku hereeyey doontan waxaa la yidhaahdaa huuri ayaa loo yaqaanaa waxay ka samaysan tahay alwaax sidaad u jeedaan oo gudaheeda aad ka arkaysaan alwaaxda waa gudaha waa idinkaga muuqataa bannaanka rinjiya marsan alwaaxdaana waxay ka kooban tahay 9 alwaax oo xabaddii ay $14 $15 ay ku timaado halkan waxaa loo yaqaan kan waxa waaye maqaafka gadaal steering uu yahay steeringki gadaalo steering oo marka la leexinayo inta laga isticmaalaa halkaana lala istaagaa gudaha joogtaa saasaad leedahay marna saasaad leedahay oo ugu wadaysaa marka ay meel ka gashana saasaad leedahay sad ku jaleecinaysaa waa steering kan waa lugihi aad arkaysaan waxa la yiraahaa saa'ib loo yaqaanaa waa balaaris iyo alwaax oo qoray ayuu ka kooban yahay waa u jeediin balaarista waa arkaysaan waxay ka samaysan tahay caag ama fiber glass ama safito wixii loo baahdaa laga sameeyaa laakiin hadda kuwan waa caag waa la jarjarayaa waxa laga dhigaa lugo waa ku tiirsanaysaa 3 lugood ayaa lagu wadaa 3 waa lugihii ay ku socon lahayd ay ku aadan steerigi lagu marka ay jiiro aadayso lagu jiiraysii lahay 3 nin ayaana kala fariisanaysa 3 nin kala wadaysa marka 3 nin ninka inta fadhiya marna intuu fariisanaya kursigan u dambeeya marna kursigan u fariisanaya marka uu 3 kursi shay la kala qabanayo mid intuu gala waa mid ka dambe la yiraahdo waxa isku wada ninka inta fadhiya isku wada labada hore saas ku qabanaya labadana saa marba mid dhinac u qabanaya midka kale wuxuu fariisanayaa waa midka labaad kursi meeshaan uu fadhiyaa waa kursigan inta hadda ka muuqanayo idin muuqdo kana uu fadhiyaa midka saddexaad wuxuu fadhiyaa kursigan 3 lugooda lagu kala dhaqaaqaya halkaas la surayaa mid walba mid inta uu suran yahay mid xagga uu suran yahay midna xagga uu suran yahay 3daas meelooda laga kala wadaa shabaagahan waa shabaagii badda loo dhigayay oo la rabay in maaragtay loo dhigto bira ayay leeyihiin shabaagtaana loo dhigaa oo qaadaa waa lagu wada shaqaystaa 3 nin ku wada kaluumaysata marka saasay ugu shaqaystaan nolosha ay aniga laftigayga saana ugu noolahay oo nolol uga raadiyaa bil xilli walba wax soo saarka marna waa iska walaxad ka soo helaysaa marna waa ka weynaysaa waxa ma ahan hadda adduunyada ma ogtaa milkiyad adduunya maalin walba lama diyaarin raashinka qayb lagu tala galaa lagu siiyaa 3 nin ku wada shaqaysta waa ku noolnahay alxamdulillah waa ku ilmo korsadna waa isaga noolna marba huuriyaan samaysanaa oo hada huurigu waa duqooba waa shay alwaaxu marka uu duqoobo alwaax kala loo bedelaa hadda huuriyaashii hore waa iga duqoobeen kana samaystay ma sha Allah waa cusubtahay tan waa cusubtaa weli badda lama saarin mar dhow in la saaraa la rajaynayaa waa idin muuqataa in rinjigeeda uu cusub yahay meeqa tan ay soo qaadi kartaa marka tan waxay qaadi kartaa 1 kiilo ay qaadi kartaa 1 kiilo malay ما يكون مقادي كرتا waxay qaadi kartaa 300 400 wax la eg oo waliba meel dhow laga soo qaadayo marka meel dhow laga soo qaadayo waa 200 kiilo shay 200 kiilo ka badan ma qaadi karto dib uu ku yahay laakiin meel dhow hadii ka soo qaadi 300 kiilo meel dhow waa ka soo qaadi kartaa 200 kiilo 100 kiilo 150 wax 60 20 30 sida loo soo helay iyo eber la intaba waa ku timaadaa ma sha Allah marka waa saas wax soo saarkeedu saas waaye dadka aan ku noolaan kamid ahay
marka waa mahadsantahay waraysiga quruxda badan aad siisay aad iyo aad kaaga mahadnaa Axmed Miskiin أحمد ما هذا اللي جنقو أحمد مسكين أكو مقعد دير هذا وما زنت واكاغا ما هاد عليها الناس تلفزيون تي في ادي اد وكاغا ما هاد عليها وراسي قروxda badan aad nasiis هذا وما هاد عليها كاغا ما هادنا بقول كتم كافرتان كو سلام وانا كاغا ما هاد عليها